dadkan oo soo ritay cudurka shuban biyoodka oo tir ahaan gaaraya 26 ruux ayaa maanta la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug. Bukaanadan oo la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Cadaado ayaa laga keenay deegaanka Iidoole oo Cadaado hoos yimaada. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Cadaado Maxamed Cumar Yuusuf ayaa sheegay in xaaladda bukaanadan uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka ay imika soo hagaagayso. dadkaas badidood ama dhamaantood aan yiraahdo hal tuulo ay ka yimaadeen oo Iidoole la yiraahdo tuuladaas sida la ii sheegay hadda dad badan oo fara badan waxa waaye wali cudurkii kuwa cusub uu soo ridanayaa kuwana waa la jiifaan hadda la soo wadaa ilaa haddana anaga 26 qof ayaan soo gaartay dhamaantoodna waxay ka yimaadeen tuuladaas iyo mataqaana area ama deegaanada ku aad ugu dhadhow la xiriiro ay mataqaana ku xiran runtii waxaan dareemi kartaa uma aanan diyaarsanayn oo hadda maanta ma aanan filaynin in cudur ama dad intaan la eego cudurkan la jiifay inoo yimaadaan dabcan haddana u diyaarsanayn qasab waxa muuqata meesha ka muuqata inaynan mataqaana alaabtii ama agabkii lagu la tacaali dadkan aysan meel loo oolin oo aysan noo sahlanayn in badan oo kamid ah tusaalaan hada faleebooyinkan ugu shaqeynayna dadkan waxa laga yaabaa farmashiyaal in laga keeno farmashiyaal laga soo qaaday marka waxa dareemi kartaa xataa waxyaalaha ugu hooseeyay qaarkood inay naga maqan yihiin shubankan ma shubankii caadiga ah oo arrest aan wax la midka ay ku filnaayeen waa shuban u baahan qofkii mataqaana si degdeg in faleebooyin xad ka baxa loo siiyo hadii aan la siino laga yaabo inuu hortaada ku dhinto. Nuur Yaro Xeele Shaar Bacde oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado ayaa dawladda dhexe iyo hay'adaha arrimaha caafimaadka ka shaqeeya ka codsaday in isbitaalka laga caawiyo dawooyinka lagula tacaalo xanuunka shuban biyoodka. Hadii oo dadka soo bato in baro la tilmaamo oo barahaas dadka isugu geeyo maadaama hadii uu si balaarto cudurkaano oo yahay mid isbitaalka qaadi karin waxay u baahan tahay gurmad min tuulo من مجاله إن لو جرمده أو أداء عفمات شقة كله قيبوي نقل قطان هذه يعني لسه عطنا وكانوا بدون تقطر كبرا أنت هذا ما أنت إجيت على جهرتين أو عذرات على فافك أو صعدة إن لا سمعوا جرمة دقيقة إن وحى ولبا حوج أول سبب بدن كينية وبيل أنت يباهدا ما أنت جشته abaaruhu ay sababeen dad badan bilaha xilliga kulaylaha sida Maarso iyo Abriil waxa isbitaalada Cadaado la soo gaarsiiyay dadka uu xanuunka kalooruhu soo rito. Xasan Maxamed Ismaan, Somali News TV, magaalada Cadaado.